maalmo dhaweyd waxaa ka socday magaalada Addis Ababa tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada 17 jirkaas oo ah soo taariikh fiican maysan ka tagin soo koobkii ma soo qaadin waxaan halka uga dhawaaqayaa magac dawladeed ku hadli maayo ururka ka wuxuu martiqaad u fidinayaa dhalinyaradii 17 jirada ah ee koobka qaaday waxaan ku soo dhaweynaynaa Puntland ururka ka wuxuu ballan u qaadayaa inuu soo dhaweeyo oo uu ku damaashaadiyo quruxda iyo horumarka Puntland ee leedahay mas'uuliyadda ay kharash ku baxay oo dhanna ururka ka baa qaadaya arrintaas u diyaar garow waxaan rabaa dhalinyarada reer Puntland ee ururka ka in ay u istaagaan horumarka dadkooda iyo dalkooda inay ka shaqeeyaan fursadda maanta aan haysano waa fursad qaali ah waa fursad muddo badan aan dhowreynay waa fursad mar walba laga shaqeyn jiray